kulantan wacan oo wanaagsan asxaabta ku xiran sahal cable TV waa markale iyo barnaamijkeeni falanqaynta iyo waliba taxliinta taariikhda caalamiga maantana barnaamijkeena waxaan ku qaadaa dhigi doonaa haddii eebaweyne ka raali noqdo boqorkii weynaa ee Alexander Miyuu Alexander dilay aabihii si uu ugu guuleysto carshiga weyn ee boqornimada inta ugu badan waxaynu ognahay sheekada Alexander oo xukumi jiray boqortooyo aan ku fidin dunidii hore isagoo tirtiray kooxihii boqortooyada kula tartami jiray ee Bershiya balse maxaan ka ognahay aabihii Philip Miyuu Alexander khaarijiyay si uu ugu guuleysto qasriga boqornimada Alexander oo ah nin dhalinyaro ciidankiisii wuxuu ka soo kaxeeyay waqooyiga Gariiga isagoona ku hogaamiyay dhulka hadda loo yaqaan Pakistan waxayna dileen kumanaan rayd waxayna amreen dil iyo xasuuq aad u tiro badan in uu tuuray ku dilo saaxiibkiisii hore isagoo sarqaansan Alexander wuxuu leeyahay dad badan balse Alexander ma bilaabin boqortooyadiisii boqorkii Macedonia isagoo ka dambeeyay dilkii aabihii boqorkii Philipkii labaad boqor Philipkii koowaad iyo Alexander mahadcelinta Alexander guulihiisii waxaa loo tiriyaa shaqadii aabihii Philipkii labaad iyo wixii ka sareeyaba wuxuu ahaa Philipkii badbaadiyay Macedonia halaag ku soo food lahaa isagoona ka adkaaday dirisyadii xoogga badnaa ee ka horta inta uusan ballaarin ilaa uu gaarin Greega iyo Balkaasan boqortooyada Macedonia waxay ku jirtay xaalad fadhiid oo siyaasadeed ah ka hor inta uusan aabihiis Philip u rogin awood military oo weyn kuma koobnin Greegii hore oo kaliya intii lagu guda jiray hawshii mideynta Macedonia iyo xakamaynta dirsiyadeeda xoogga badana Philip wuxuu abuuray koox gaar ah oo isugu jiro noocyada kala duwan ee ciidamada isagoona ka dhigay hal ciidan oo xoog badan ciidankaani wuxuu ku faani jiray qaybta fardoolayda tababaran ee uu aas-aasay Philip iyo sidoo kale guutooyin lugeeya oo loo yaqaan guutooyinka Macedonia kuwaas oo ixtiraaqi jiray qaybo cusub oo dagaalka ka mid ah guutooyinka lugta ee Philip waxay ku hubaysnaan jireen waramo ugaarsi dhaadheer kuwaas oo la yiraahdo saris oo dhererkeedu lagu qiyaaso in ay gaarayaan 5.5 mitir kuwaas oo ka samaysnaa ubaxyo alwaax oo afka hore ku leh madaxyo bir ah kooxdaasna waxaa hogaamin jiray Alexander oo reer Macedonia ka soo jeeda boqortooyadii Bershiya Alexander wuxuu hogaamiyay ciidankii oo run ahaantii ka koobnaa rag iyo guutooyin Philip uu aas-aasay si uu la dagaalamo si la mid ah sidii uu ula dagaalami jiray aabihii in ka badan 20 sano safarkaasna wuxuu mideeyay Macedonia isagoo wata maamulkiisii Alexander boqor Philip waxaa tuuray lagu dilay sanadku markuu ahaa 336 dhalashadii Nabi Ciise ka hor tiyaatarka Ajisan oo maanta hadda loo yaqaano Virginia isagoo jira da'da 47 sano jir ayadoo ay ku sugnaayeen dad aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha Macedonia iyo waliba isu takay Greega oo uu xukumi jiray xilliga dilkii Philip aan isku dayno inaan fahanno wuxuu uu ahaa ninka yar ee reer Bosnia dhammaan tilmaamayaasha ayaa muujinaya in falkan loo galay xanaaq ka dhashay dhibaato shakhsiyadeed si weyn ayaa looga yaqaanay guud ahaan halka uu ka talinayay isla markaana Macedonia si ku cad booska taariikhda Mareykanka ee qoran waqtigan Greegii hore cilaaqaadka galmada looma mamnuucin sida diimaha oo kale boqorka ama hogaamiyuhu badanaa wuxuu lahaa wax ka badan hal xaas Philip qudhiisu wuxuu lahaa 8 xaas waxa xiisaha leh ayaa noqonaya in Philipkii labaad uu sidoo kale lahaa wax la yiraahdo jalman oo uu wehliyo haweenkiisa sida darteedna rabitaankiisa uu ugu dambeyntii isaga dilay buusanisa markii uu dhalinyarada ahaa wuxuu ahaan jiray wiilkii boqorka uu jeclaa Philipkii labaad wuxuuna ahaa mid xaasaska badan sida boqorka reer Macedonia oo dhani ay ahaayeen si kastaba ha noqotay Philip nihiisu markiiba way xumaadeen waxaana nin kale oo dhalinyaro ah lagu bedelay Bosnia oo ka carooday jacaylka cusub ee boqorka taasina ay kaliftay in uu ku jeesjeeso isla markaana ku eedeeyo in uu yahay hantigoosad isla markaana aan awoodin in uu dagaalamo taasina waxay keentay in halkaas argoosi ka bilowdo waana sababta ugu badan ee la sheego in ay ka dambeysay dilkii Philipkii labaad waqti kadib si kastaba ha noqotay su'aalo badan ayaa la soo saaray oo ku saabsan haddii ay jirto qayb qarsoon oo sheekadani ah Bosnia kaligiis baad ficil sameeyay mise
waxaa jira qof kale oo u adeegaysaday wiilkan yar ee argagaxsan ciyaar weyn oo si uu u dilo Philip una bedelo sharciyada ciyaarta ee siyaasadda ee waddanka Gariiga. Alexander ayaa markii dambe ku eedeeyay boqorkii reer Faris inuu ka dambeeyo dilkiisa si loo joojiyo halista cadowga Macedonia isagoona ogeyn sida dagaalka dambe iyo guul u noqon doonto wiilka Philip. ugu dambeyntiina Philip ma ahayn nin jilicsan balse wuxuu ahaa wiilka yar ee Alexander. xisaabaadka qaar iyo waliba qorayaasha wax ka qorshay kooyinka ayaa sidoo kale ku eedeeyay Alexander hooyadii Olympias. hooyada Alexander waxay ka mid ahayd 7 ama 8 xaas ee Philip balse waxay ku raaxaysatay mansab mudnaan leh oo ah hooyada dhaxal sugaha ee boqortooyada. hase yeeshee waxaa si weyn loo rumaysan yahay in Olympus iyo ninkeeda ay isnacab yihiin waxaana la rumaysan yahay in ay u carootay xaaskiisii ugu dambeynna Philip. Olympus waxay ka mid ahayd koox jaahiliin ah oo caabuda masaska waxaana la sheegaa in aysan ka cabsan masaska balse waxay la seexan jirtay Sirta waxayna ahayd gabar u dhalay boqor ka tirsanaa deegaanka la yiraahdo Ibrus markii aabaheed dhintay sanadku markuu ahaa 360kii miilaadiga wuxuuna qaabilay 10 nin waxayna bilaabeen la sameeyo xulufo wuxuuna diyaar u noqday in uu guur diblomaasiyadeed oo ay la yeelato Philip. Olympus waxayna ahayd xaaskii si afraad ama saddexaad markii ay umashay wiilkeedii Alexander ina Philip. kadib markii Philip uu guursaday Atlas adeerkiis dhibaatooyinka u dhaxeeya Philip iyo Olympus ayaa sii kordhay gaar ahaan tan iyo markii Atlas iyo kooxdiisa ay bilaabeen in ay dhegta dhiiga u daraan Philip dhegtiisana in ay tahay in uu yeesho qaraabo maxaa yeelay wiilka Alexander ma ahayn Macedonian saafi ah maxaa yeelay hooyadii waa Olympus ayada ka soo jeeda boqortooyada Ibrus. bilowga yaraantii Alexander taariikhyahanadu waxay duubeen la kulankii aabihii Philip boqorkiina wuu ka carooday halka hooyadiisna waxay go'aansatay in ay dib ula noqoto gurigeeda in muddo ah. walaalkeed wuxuu noqday hantiilaha Ibrus si uusan ula galin Philip cadaawad darteed wuxuuna u bandhigay in uu guursado gabadhiisa Giobra. arooskaasna waxaa lagu dilay Philip iyo Bowsan. Olympus waxay door muhiim ah ka ciyaartay nolosha wiilkeeda xitaa waxay hogaamisay ciidamo kadib dhimashadii Alexander waxayna dishay dadka ka soo horjeeday ee halganka kula jiray xukunka khaliifka iyadoo ay wadato magaca ayayadeed ee Alexanderihii afraad balse ugu dambeyn kuma guuleysan. Olympus shaqalaan waxay ahayd qof caqli badan oo adag isla markaana u fikirta sidii ninkeedii iyo wiilkeedii oo kale dhamaantiis. ugu dambeyntii dilka loo haysto Alexander inuu dilay aabihii wili waa mala awaal oo lama hayo xaqiiq sax ah oo taasi cadeynaysa in Alexander uu dilay aabihii wiliba sabab xilkaas in uu la wareego ahaan ah. dad badan ayaa ka shakisan in Alexander laftiisu uu ka dambeeyo dilkii aabihii hamigiisuna uu ahaa in uu qabto xukunka. Alexander oo markaa ahaa 21 sano jir waxaa loogu dhawaaqay in uu yahay boqorka Macedonia saacado gudahood geeridii aabihii Philip. Alexander wuxuu qaaday tilaabooyin dhowr ah oo uu ku xaqiijinayo booskiisa isagoo amar ku bixiyay in la dilo 2 qof oo la tartami jirtay isla markaana uu amray in uu u diro ciidamo aasiyadii yareed si looga soo saaro Atlas ciidankiisa. ololahii militariga ee degdega ahaa sanadkii xigay wuxuu xoojiyay maamulkiisa koonfurta Gariiga iyo waliba xuduudihii Balkan midkoodna ficilada ma muujinayn kulug lahaanshaha Alexander ama aqoon in uu leeyahay isla markaana ka dambeeyo dilka aabihii. markii uu dhintay Philip ficilada Alexander waxay ahaayeen talaabooyin ka hortag ah maxaa yeelay talaabo kasta oo kale waxay u agtahay in uu ka horseedayo dilkii Alexander laftiisaba. soo noqoshada ma aysan ahayn muuqaalka Alexander marxalad kasta oo nolosha ka mid ah taariikhda ayaa muujinaysa waxtarka Alexander uu ku leeyahay dilkii aabihii. Alexander waxaa laga yaabaa inuu si fudud u noqday qof nasiib iyo fursad leh heerka koowaad sida hogaamiyayaal badan oo caan ah oo taariikhda oo dhan ay xusto. wax yar baa laga og yahay dabeecadda hoose Alexander si loo xaqiijiyo in uu dilo aabihii mana jiraan xaqiiqooyin cadeyn in uu sidaa sameeyay. kiiskan ayaa weli ah mid qarsoodi ah oo lagu daray waxyaalaha qarsoon ee siraha ee ku xeeran nolosha aan caadiga ahayn ee madaxa weyn ee Alexander ee ku duugan Macedonia.
guud ahaan waanaga inta barnaamijkeeni oo maanta aan ku soo qaadanay taariikh nololeedka kooban ee boqortooyadii Philip iyo waliba Alexander insha ku kulmi doona barnaamijkiisa xiga waa aniga iyo dhammaan Sahan Cable TV oo idin leh amaana Allah